dalka Mareykanka oo ah kan ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa madaxweynayaashii soo maray waxay ahaayeen kuwo dabaqada noloshooda ay kala duwaneed. qaar kamid ah waxay xilka qabteen iyagoo leh hanti ama kasoo jeeda qoys hanti leh, halka kuwo kalena ay ka yimaadeen qoysas aan waxba haysanin. Warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka ayaa warbixin ka qortay 5 madaxweyne ugu hantida badnaa ee qabtay hoggaanka dalkaasi. madaxweynaha iminka talada haya Donald Trump waxaa xafiiska loo doortay sanadkii 2016 xilliga oo uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka ee kula tartamayay Hillary Clinton. Hantida Trump ayaa gaaraysa daawade 3.1 bilyan oo dollarka Mareykanka. mar walbana wuxuu sheegaa sida uu ku helay lacagta inuu yahay shakhsi aad ugu gulgaaray ganacsiga dhismaha dhulka. Fox News oo qiimeyn ku sameysay hantida madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa Trump ku qiimeeyay madaxweynihii ugu hantida badnaa ee abid hogaamiyay dalkaasi. Trump ayaa hanti badan iyo shirkadda dhismaha kala wareegay aabihii, wuxuuna ku sameeyay ballaarin. Trump ayaana hoteelo caalami ah ku leh magaalooyinka waaweyn ee gudaha dalka Mareykanka. John F. Kennedy oo xilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka qabtay sanadkii 1961 ayaa wuxuu xilkaasi hayay ilaa sanadkii 1963 markaasoo toogasho lagu dilay. hantidiisa ayaa lagu qiyaasayay 1 bilyan oo dollar, wuxuuna asal ahaan ka soo jeeday qoys hanti leh. aabihii wuxuu mar ka mid ahaa dadka ugu hantida badan ee gudaha dalkaasi. xaaskiisa Jacqueline Kennedy waxay ahayd haweeney dhaxal ahaan u heshay shirkad shidaal oo ay lahaayeen qoyskooda. hantida ay lahaayeen ayaa la sheegay inay ka mid tahay wargeyska Wall Street iyo kuwo kale, waxaana madaxweyne Kennedy lagu qiimeeyay inuu ahaa madaxweynihii labaad ugu taajirsanaa ee madaxweynayaasha soo maray Mareykanka. George Washington. madaxweyne George Washington oo ahaa madaxweynihii koowaad ee dalka Mareykanka ayaa xilka qabtay sanadkii 1989 waxaana ka degay 8 sano kadib. hantida madaxweyne George Washington ayaa lagu qiyaasay daawada in ay 525 milyan oo dollarka Mareykanka. wargeyska Financial Site ayaa ku soo waramaya in madaxweyne George uu guryo aad u waaweyn oo ku lahaa buuraha Vermont, kuwa oo ku fadhiyay dhul gaaraya 10 hektar. mushaarkiisa ayaa la sheegay in xilliga uu ahaa 2% miisaaniyadda guud ee Mareykanka sanadkii 1989. xaaskiisa Martha ayaa dhaxal ahaan u heshay daawada hanti fara badan uu lahaa aabaheed. madaxweyne Thomas Jefferson oo xilka madaxtinimada Mareykanka qabtay sanadkii 1801 kana degay sanadkii 1809 ayaa Fox News waxay hantidiisa ku sheegtay inay gaarayso 212 milyan oo dollar. si lamid ah madaxweynihii isaga ka horeeyay Jefferson wuxuu ahaa nin ka ganacsada dhismaha dhulka iyo guryaha dad uu adoonsan jiray oo ugu tagay aabihii, wuxuuna sidoo kale lahaa dhul loo dalxiis tago oo ku yaala gobolka Virginia. inkastoo madaxweyne Thomas Jefferson uu lahaa hanti dhan 212 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa haddana wuxuu dhintay isagoo lagu leeyahay lacag deena. madaxweyne Theodore Roosevelt waa madaxweynaha ugu dambeeyay ee laga soo calaamiyay daawada hantida dalka Mareykanka madaxdii soo martay. madaxweyne Thomas Roosevelt oo soo noqday madaxweynihii 26aad ee dalka Mareykanka ayaa xilka qabtay 1901 waxaana hantidiisa lagu qiyaasay 125 milyan oo dollar, wuxuuna noqday madaxweynaha 5aad ee ugu hantida badan gudaha dalka Mareykanka.